مولى سؤال أنا كاجا فائديستو. Thank you solo wala. daawadayaal kusoo dhowaada muuqaalkeena maanta oon ku falanqayn doona muwaadinimada ama lahaanshaha dhulka. haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar waad ku mahadsan tahay. waa anigoo ah abdaxkiim elonko. kusoo dhowaada muuqaalkeena maanta. ma og tahay in 70% dadka Soomaaliya ku nool ay yihiin dhalinyaro kuwaas wax ka bedeli lahaa dalka Soomaaliya? mise og tahay in ka badan 40,000 oo dhalinyaro ah ay naftooda ku waayeen badda Mediterranean-ka ah oo ay ku raadinaya nolol tan ka wanaagsan? ma og tahay in Soomaaliya population-keeda uu yahay ku dhowaad 20 milyan halka kan dalka aan jiiraanka nahay oo ah dalka Kenya uu yahay ku dhowaad 60 milyan kaasoo ah 3 jibaar population-ka Soomaaliya, halka xeerarka dhalmada uu aad ugu sareeyo dalka Soomaaliya kana sareeyo dalka Kenya. waxaan idinla wadaagi doonaa video nin dhalinyarada Soomaaliyeed oo ugu caansan xagga YouTube-ka uu ku wareysanayo nin waaya arag ah kuwaasoo ka hadlaya population-ka hoos u dhaca ku imaadaya. haddii aad xiisaynayso inaad wax ka ogaato population-ka Soomaaliya iyo siduu noqon doona future-ka mise 20 sano soo socda, ha moogaanin inaad muuqaalkan dhammaysato daawasho wacan. adduunka qof dhibiga meel oga taga ma lahan. ingiriiska haddii half british ilmaha uu yahay waa citizenship aan laga daba hadli karin, bal iska badaaye kii ku dhashay wuxuu taagay ninkan waa muwaadin ingiriisa. barnaamij aad daraad ka soo hadlaysay oo aad dhehaysa ma xasuusataa ilmihii ingiriiska ku dhashay turkiga markay tageen Soomaaliya loo waday visa la weydiiyey sababtoo ah ilmahaas maadaama ilmi ingiriis ku dhashay yihiin oo Soomaali aysan ahayn. waxa iri ilmahagi hooyo Soomaaliya iyo aabba Soomaaliya ee dhaleen loo jeedo buu ingiriisku ka leexsaday oo yiri ilmahan waa British waa inay Soomaali visa u qaataan. haddana saasoo taa ingiriiska kaama yeelayo hooyada cadaanka ee Britishka iyo aabbaha cadaanka ee Britishka ee xalanaha jooga isqaba ilmaha xalana ugu dhasha waa muwaadin Soomaaliya iyo British ingiriisku visa u qaadanaa kaama yeelay kan waa British ku leeyahay. 20 sano 30 sano ee soo socdo population la isku gumaysan doonaa, dakhliga la isku gumaysan doonaa, wadanku ka shacab badan yahay, ka population badan yahay, uu mataqaanaa madaxu kaga istaagi doonaa wadanka kale. waa sababta haddeer Mareykan iyo China iyo canshuuraha dusha la isaga saarayo. Exactly. wadamadan horu maray waxay marayaan kii xataa soo galay oo 5 sano 6 sano joogay dheen muwaadinaad tahay ilmuhu sii dhalana way ku xisaabtamayaan. adigana kii aad dhashay oo gabadhaadu ay dhashay ama wiilkaaga uu dhalay oo dhinac ajnabi ka ahaya tirtiraysaa oo jaraysaa waxa siinaysaa wadankii kale. say sheekadu u socotaa reer comment waxay noo soo qoreen oo dhaheen sheekh kamida shuyuuqda Soomaalida oo asalkiisu Eritrean yahay oo xataa isagu wareysi ku bixiyo sheegay aan waxa dhahay ay soo qoreen. waxaan ku dhahay sheekhaas ma faa'iida ku qabtaan mise khasaara ku qabtaa? burciid wuxuu dhahay faa'iidaan ku qabaa. haddaad jari lahayd ka warnaa dhihi lahaa Soomaalina meel kama soo gashada naga bax maanta Eritrea soo faa'iido kuma qabileen. Mo Faarax ingiriiska uu soo galay citizen ka dhigeen dhowr iyo 30 bilood oo goldhi ah u keenay marathon iyo orod marka laga hadlaa ingiriis miisku soo fariistaa. laakiin soo qofka biladaas u keenay waa qof Soomaali ah. ingiriisku inuu Mo Faarax citizen uu siiyo asaga uu matalay miyuu ku qasaaray mise ku faa'iiday? mayuu ku faa'iiday. adigana kii ku dhashay ee laga yaabo inuu haaf Ciraaqi haaf Soomaali yahay oo marathonku ku fiicnaa waxa taagan tahay aniga ima soo gashid ima matalaysid. Ciraaqu taga Ciraaqu matala Ciraaqu dhowr 30 bilood oo goldhi u geena oo dahab u geena. ma qasaara qabtaa mise faa'iida qabtaa? qasaaraan qabnaa. wiilkan wuxuu ku doodayaa uu leeyahay war haddii wixii dadka kale ay dhaleen aan soo fasaxno oo muwaadiniin ka dhigno haddee balaayo qowmaluud iyo balaayo iyo dhaqamo kalaana dhex yaacay. su'aal kale dib u soo noqotay oo haddeerba kuwaan Soomaali wiligood dhinac u soo dhaafina qowmaluud TikTok joogo xataa la follow gareeyo loo ogayo la isku caaya xataa hebel hebel taalis dhaha. gabdhii 2010 aroos dhacay haddaan media ku qoro
waxaa la soo helaa gabdho waagaas madax qaawanaa yaa baray ilan qowmiyado kale oo haafa Soomaaliya uma soo fasixin oo ma soo degin oo ma dhex milmine soo kuwan wada madax qaawanaa xataa 2010 media xataa ma jiri jirin dhaqan xumadaani waxaan hadaadan adiga wasaaradahaaga diinta iyo awqaafta iyo culimadaada iyo aadan iska qaban xataa haddaysan bulsho kale ku soo dhex gelin way kugu dhex faafayaan laakiinse adduunka soddonka sano soo socda wadanka population badan yahay uu gumaysan doonaa uu ku degdegi doonaa awood military u sheegan doonaa uu muquunin doonaa adiga inaad dadka badsataa laga rabaayo muwaadinkaaga haafka dhiigaaga haaf aad leedahay hadduu kuu yimaado oo ku dhaho carashaan inaan kula noolaana rabaa hadiidin okay ما شاء الله hadduu calashaan diin kale hadduu haysto iyo waxyaalo kale hadduu wado waa barnaamij kale dhaqan iyo diin aan leenahay su-aashu marka waxay ka bilaabatoon rabaa inaan intaas information aan ku siinayo wiilka yamaniga ah ama wiilka sacuudiga ah ama wiilka Etoobiyaanka ah ama wiilka Kenyaatiga ah ama wiilka Masriga ah ama wiilka ee hooyadiis intay wadankaas ayadoo joogo laba cunug iyo wax dhashay la soo carartay oo Soomaaliya la timid aniga igu akoray dugsiga macallin Xabeeb ila dhigan jiray iskoolka Imaam Nawawi igala qalin jibiyay aan isla labisan jirnay banooniga isla ciyaari jirnay Cabdixakiin Maxamed Bashiir ama Cabdifataax Yuusuf Cali ama Xasan Maxamed Cali la yiraahdo aan aqaano safara soo galay Kenya u baahday immigration ku taga baasaboor Soomaaliya rabaa u yiri ma qaadanaysaa leeyahay muwaadin matiid soddon jir waaye weligii Soomaaliya ma dhaafin abtiya habaryar u yaqaana anagu nagu dhex koray ayadoo marka adduunka populationkaas in dadka la badsado oo dadka lugta ku yimid xataa la muwaadiniday si ilmihiisa ay meeshan inay dhashaan muwaadin halkan looga sii dhigo loo socdo haddii aan Soomaaliland haddaan taaganahay kii xataa annaga haaf aan dhalnay aan mataqaanaa aan diidaynaa bal aragtidaada muudaan ku galeynaa si mataqaanaa xogaa faahfaahsan nagu faahfaahay aad u mahadsantahay thank you brother fiiri ani markaan yaray Soomaaliya waxaan dhigan jiray iskoolka carabta macallimiin masaariyan u dhigi jirtay marka galaaska markii magacyada la sheegayo waa xasuustaa wallahi marka aan yaray Saalax Hebel Qaxdaan magacyo waxa la sheegin jiray oo carabi anaga reer xamray noo ahayn dadka laakiin macallinka Masriga wuxuu dhihi jiray Qaxdaan mid Falastiin ma tahay ma Hebel aad tahay kadib aan dhahnaa waraa adii maxaa waani wax laga sheegayo ma anaga asalkii Falastiini ahay waa ninka Soomaaliga la fadhiyo waaya Hebel Saalim Cawad magacyadu hatta waa xasuustaa تاكي ما تأذي شمالك أو يمن لنا عن منطقة صناعية كإمادة مركز سومالي ساسي أهد أو رمضة مقع إنا كيف هنتموجي والو ذا تكناي سومالي وحلقون قناي لقدة هذا في سومالي كوها شد وحلقو والو سومالي معناها سومالي نقطي دقالة دي وحان يدبكو حي كيران إلا كلبحو لكن سيدي يكون قناي أو سومالي ضد يرواي وين أو دقالة يوحب البيالان واي marka su'aasha imaanaysa waxa ilmahan inta ku dhashay hadda af Soomaali ma yaqaanaan waxa ka xaq leh cunuga Suuriyaanka hadda qaxootiga oo Soomaaliya jooga af Soomaaliga yaqaan kaasa ani aaminsanahay inuu ka Soomaalisan yahay kana jecel yahay fiiri kaas waxa laga yaabaa in dhibka dagaalka uu dhibsanayo in qarax uu dhibsanayo laakiin qof qurba ku dhashay oo la geeyay uu ka soo shaqeysanayo hadii la geeyo hatta aakhirkii magaalada ku dhashay u soo noqonaa laakiin Yemeniga Oromada qof kastoo Soomaali ku dhasho ku koray oo ku weynaado wax ku bartay oo ka jecel yahay mar walba qofka aabiisa Soomaaliga oo ku dhashay Mareykan iyo Australia iyo Canada taas ani waxa aaminsanahay way taada kale Soomaalida badanaa waxay ka walwalaan guurkan ajnabiga maadaama aan muddo joogno wala isdhax galay ani marka imaanayo waxaan jiray 16 aan jiray hol marka imaanayo magaalada tuulada inta degneed kullu Soomaalida dhagay wateen waqtiga dhalinyarada la ahaa dhagaa la wada durtay dadkaas hadda aabiyaal waa qaarkood masaajidada safka ugu hore imaamiyo waay marka waqtiga mararka qaarkood wadciga dhulkana imaan guriga dhaqanayaal banaanka dhaqan gooniyayaal saaxiibada waa dhaqan gooniya isdhexgal uu dhacaa laakiin waxa la rabaa wacyigelin sida hadda aad sameysay camal in la wacyigeliyo wixii loo fool xumeeyo la tuso laakiin qof walba oo Soomaali ama hooyadii Soomaali ah ama aabihii Soomaali ah kale waa loo baahan yahay waddankaas أصاب أوباهم بعد وأركتي إنجليزك 90% تقاتيرته وحي بديهين ضد أو أجانبه نارس كسوق له إنجنير مريكان هو مركو جاري واحد مايكروسوفت كل اللي جوش شيء واحد والبدوك لوجا بهذا أو IT مريكان على كنا مريكان وحقص ما ضد أجانبه
qofka haddii la arko inuu khatar yahay dhalashaa la siiyaa waa la soo dhaweeyaa. waxaan xasuustaa mar anoo Universal TV fiirsanayo qaxooti ayaa manka imaada marka waxay kusoo degeen magaalada Boosaaso. waa la raraa marka xamara loo wadaa iyo koonfurta nin odaya istaagay waxaan maraa nin qurba joog inuu ahay markaasuu qaylina oo dhaha war dad kale ma fogeey war dadka soo dhaweeyay dejiya dadka magaalada hala dejiyo waa lacag waay dadkan inta u wadaan dadka maya magaaladoodii war maxaa magaalada ugu wadaa dadka intaa u baahan noo deji dadka lama fahamsana marka macnaha annaga waxaana fahamsaneen qof kasta ilaa shiinaas hadduu ku sheegto u baahan tahay adigaa laga rabaa marka inuunu fasahaad keenin inaad diinta ilaalisid maamulkaa laga rabaa. daawadayaal haddii intaa nala soo gaarteen waad ku mahadsan tihiin. waxaan rajaynayaa inaad wax un ka faa'iideen taasoo fikirkaada bedeli doonta. haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar waad ku mahadsan tahay daawashadaada.